inta ka bacdi iyo mahadcelinta iyo hambaliyada wuxuu madaxweynuhu shir la galay odayaasha deegaanka degmada Waaciye shirkaas oo ay odayaashu kaga hadlayeen wuxuu ahaayay baahiyooda ku sheeganayeen waxay odayaashu ka hadleen madaxweynaha kala hadleen maamulada Puntland iska dameeyay waxyaabaha aan qabsoomin iyo wixii uu qabsoomay iyo ballanqaadyo badan oo muxuu ahaayay ilaa beerka waayeen madaxweynaha hore ama dawladihii hore ka ballanqaadeen shacabka degmada Waaciye oo marna fuli waayay waxay odayaashu ka hadleen in xaalada guud ee amniga degmada Waaciye gobolka Kaar wax laga qabto waxay ka hadleen xaaladda muxuu ahaayay biyaha nolol ma jidho in xaaladda biyaha wax laga qabto waxay kaloo ka hadleen odayaashu in arinta shilalka muxuu ahaayay wax laga qabto intaasoo arrimada ay ka hadleen waxay kaloo sheegeen madaxweynaha inay wax badan qabsadeen loona baahan yahay waxooda ay qabsadeen in lagu qiimeeyo wax laga qabto alxamdulillah rabbil caalamiin madaxweynuhu aad buu u soo dhaweeyay odayaasha hadalkoodii wax badan oo wacyigelin ayuu ka hadlay wuxuu ballan qaaday madaxweynuhu inuu arinta shilalka wax ka qabanayo laba asbuuc gudahoodna uu muxuu ahaay ku keenayo wiish laakiin wuxuu yiri inaa meed aasna macna keenaystay waxyaabaha shilalka keenaya waa in muxuu ahaay la baaraa sidoo kale madaxweynuhu wuxuu kala hadlayaa in amniga deegaanka laga shaqeeyo